xayawaanka bisada mukulaasha ama yaranyuurta qofka sida uu yaqaano ayaa xayawaan aad u maskax badan dadkana ka agdhow ama gurjooga. bisada ama mukulaasha ayaa xayawaan la dhaqmi kara ama la noolaan kara bani aadamka, waxaana caadiyan aad arkaysaa dad badan oo carbista mukulaasha gurigana ay kula nooshahay, Soomaaliduba ha ugu horeyse. xayawaankan ayaa xayawaan fahmi kara hadalka bani aadamka, waxaana khubarada samaysay daraasadan oo u dhashay dalka Japan waxna ka dhiga jaamacadda University of Tokyo ay aaminsan yihiin in bisadu ay adabtigaraysay ama la qabsatay hadallada bani aadamka maadaama ay qarniyo badan ka agdhoweyd aadamaha. bisadu waxay eegtaa qofka wejigiisa iyo shucuurta ka muuqata ama baaxadda hadalku afka uga soo baxo, waxayna dareemi kartaa haddaad xanaaqsan tahay iyo haddii aad faraxsan tahay sida khubaradu ay aaminsan yihiin. waxaa la aaminsan yahay in haddii aad cod qaylo ah adeegsato in bisadu ay durbo baxsato kana fogaato agtaada iyadoo dareemi karta inaad xanaaqsan tahay. haddaba sideed isku bari kartaa bisad ama yaranyuur? khubaradan ayaa ina siinaya tusaale kooban oo arrinkan ku aadan. in gacmaha layska salaamo xilliga isbarashada waa dhaqan ay leeyihiin bani aadamka, laakiin marka aad isbarayso bisad maaha in aad gacantaada ku taagto, waayo bisadu gacanta furan waxay u taqaanaa dagaal ama weerar ku soo wajahan. laakiin haddii aad doonayso inaad isbarataan bisad, farahaaga wadalaab adigoo fidinaya oo keliya faryarayda oo qura adigoo dhahaya helow, waxay bisadu fahmi doontaa in aad doonayso inaad la saaxiibto. saynisyahanada Jabaaniiska ayaa sidoo kale aaminsan in bisadu ay la hadasho bani aadamka iyadoo isticmaalaysa codka ay caanka ku tahay ee yaw. yaw waa fariin ku socota bani aadamka, waana cod ay adeegsato bisadu marka ay gaajaysan tahay sida khubaradu ay aaminsan yihiin.